السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة سومالي تشوبس. waxaan ku hadlaynaa faa'iidooyinka laga helayo ku shaqaynta hab mutadawacnimo ah. Mutadawacnimo ku shaqayntu runtii waa fursadaha qaaliga ah ee ay tahay qofku had iyo jeer inuu waqtigiisa siiyo qayb ka mid ah, waayo bulsho ahaan waxa aynu nahay bulsho muslim ah oo ay waajib tahay inaynu iscaawino. caawimada aynu iscaawinano oo faa'iidooyin fara badan qof waliba uu ka helayo. waxaad dabaad ka fikirtaa sidii aad hawl maalmeed tabaruc u qaban lahayd iyo waxyaabaha ay ku soo kordhinayaan hawlahaasi naftaada iyo noloshaadaba. waxa suuragal inaad shaqo raadis tahay balse aanad lahayn khibrad shaqo. waxaad og tahay inaan shaqo aan la helin ilaa khibrad la yeesho. waxaa laga yaabaa inaad doonayso inaad farsamooyin cusub barato iyo bulsho badan. waxaa laga yaabaa inaad wax ka beddesho shaqooyinkii aad qaban jirtay. waxyaabahaasi si ay suura galaan haddaba waxaanu eegi doonaa faa'iidooyinka laga helayo qabashada shaqooyinka tabaruca ah. waxaa laga helaa had iyo jeer inay dhisaan kalsoonida nafta, oo haddii aanad shaqahayn nafta oo aan cid la shaqayn oo aan hawl qaban waxay ku keenaysaa nafta inay su'aalo badan isweydiiso. bulshada miyaanad qiimo ku lahayn, miyaanad waxba qaban karin, maxaad shaqo u heli weyday, waxyaaba noocaas. laakiin marka aad fursad lagu siiyo inaad hawl qabato naftaada waxaad ku qasbaysaa inay wax qabato, waxa inay guula ka gaadho. guulahaasina kalsoonidii nafta ayay dhisayaan. waxay dhisayaan naftu kaalintii ay bulshada runtii kaga lahayd. waxay kuu suura gelinaysaa qabashada shaqo tabaruci inaad isbeddel samayso. isbeddelkaasi wuxuu saameyn ku yeelanayaa intii aad la shaqaynaysay, bulshada iyo guud ahaan ummaddii dhammeed caawinaysay. isbeddel ayaa runtii ku imanaya. bal ka fikir adigoo subaxii 6 ilaa 8 subaxnimo cisbitaalka meesha aad degan tahay caawiya oo hawl la qabta. arrintaas waxay keenaysaa runtii inaad isbeddel weyn ku abuurto bulshadii, xiriirkaaga bulshadana inay hagaajiso. ku shaqaynta tabarucu waxay xoojisaa xiriirkaaga, waxay ballaadhisaa bulshada runtii aad la leedahay xiriirka. bulshada faraha badan ee xiriirka aad la yeelanaysaa waxay ka kooban yihiin dad kala duwan oo mid waliba khibrad gaara leeyahay, mid waliba xog gaara leeyahay. xogaha faraha badan leh iyo dadka khibradda fara badan leh, dadka kala duwan waxay kuu suura gelinayaan inaad fursado cusub, farsamooyin cusub, xog cusub iyo khibrad fara badan inaad ka barato. waxay kuu suura gelinaysaa ku shaqaynta tabarucaadku aan xiriir la yeelato bulsho ka baxsan qoyskaaga iyo ehelkaaga. waxay xoojinaysaa markaa isdhexgalkaaga adiga iyo bulshada. waxay kuu suura gelinaysaa skills cusub, farsamooyin cusub barato, inaad khibrad hesho iyo xataa inaad waraaqa aqoon kororsi inaad hesho ayay kuu suura gelinaysaa. hay'adaha qaar iyo kambaniyada qaarba waxay sameeyaan dadka tabaruca ugu shaqaynaya tababaro dheeraad ay siiyaan, koorsooyin bay u diraan. dabeed koorsooyinkan waraaqa iyo documentation baad ka soo helaysaa. waxaa laga yaabaa hay'adda ama kambaniga shaqo fiican aad u qabatay inay kugu siiyaan waraaq aqoonsi ay leeyihiin hebel iyo hebel waxay ka gaadheen guulo shaqadii ay u hayeen shirkadda. waraaqahaasi waxay kuu suura gelinayaan si hadhow inaad raaciso shaqooyinka aad codsanayso inaad raaciso ayay kuu suura gelinayaan. marka farsamooyin cusub, khibrad cusub iyo documentations cusub ayaad runtii ka helaysaa inaad si tabaruca ku shaqaysaa. tabaruc ku shaqaynta waxay naftaada ku keenaysaa inaad ku dirqado inay waxyaabo cusub qabato, inay isbeddel abuurto, in qorshayaashii nafta u dejisnaa aad guula ka gaadho, inaad farsamooyinkii cusbaayaad baratay aad hirgeliso, inaad mufakarnimo iyo waxyaabo badan naftaada ku qarsoonaayo hore inaad dibadda u soo saarto. waxaa runtii keenaya qabashada shaqo tabaruca. shaqo tabaruca inaad qabataa waxay kuu suura gelinaysaa inaad si fudud shaqo ku heli karto ayay kuu suura gelinaysaa. waxaa markaa laga maarmaan ah inaad waqti ka mid ah waqtiyada
u hurto sidii aad tabarucaad ugu shaqayn lahayd inaad adigu raadsato inaad hay'adaha u tagto kambaniyada u tagto aad tiraa waxaan u baahnay in lagu shaqaysto waxaan u baahnay inaan caawiyo shaqo lacageed kama doonayo waxaan u baahnay kaliya inaad farsamooyin cusub iyo skill ay baro taasi waxay suuro gelinaysaa bulsho badan xiriir la yeelato inaad ummad badan ku xidhanto xog badan aad hesho farsamooyin cusub iyo khibrad badan runtii inaad hesho kuwaasoo kaa caawin doona markaa sidii aad shaqo u heli lahayd halkaas ayaynu ku joojinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.